asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu rabadaan mubaarak waa maalintii afaraad ee barnaamijkeena rabadaan english series waa maalintii afaraad waxaana kaga hadlaynaa explaining ramadan to non-muslim friends sidaan ugu sharxi karno ama jumlooyin aan ugu sharxi karno qof aanan muslim ahaynin ramadaanka. soo dhawaada mar kale waa aniga ustaad maxamuud axmed xaaji ah, maamulaha iyo macalinka wax ka baro academy ayaan barnaamijkani inoo taabagelinayo ama inoo daadihinayo. haddii aadan applicationka soo download garaynin, casharada dhan applicationka ayay ku jiraan. fadlan haddii aadan nagu cusub tahayne make sure inaad subscribe inoo saarto ama follow inoo soo dhahdo. alright, aan u gudubno marka jumladeena ugu horeeyo. During Ramadan we abstain from food and drink from dawn until sunset. bisha Ramadaan waxa weeyaan waxaan ka joogaynaa ama aan iska joojinaynaa cunista iyo cabista laga soo bilaabo down, waa berigii waan ka soo hadalna waan soo barana soo mahan, ilaa qoraxdu ay ka dhacdo sunset. so marka jumlada ereyga aan baranayn waxa weeyaan abstain from, inaad ka joogtid weeyaan oo aad ka fogaatid oo aadan u dhowaanin weeyaan. abstain from, maxaan ka fogaanaynaa? cunista iyo cabista. waa inta badan waxa aad iyo aad looga hadlo, laakiin waxaa kaloo jiro in loo baahan yahay in laga fogaado wax la dhaho maxaa la dhahayay hadalka xun iyo dhaqanka iyo caadooyinka xunxun oo dhan in laga fogaado ayaa muhiima. marka qofkii muslimka ahay marka waxaad u sheegaysaa sida aan u sonno waxa weeyaan waa cuntada iyo cabitaanka ayaan ka joogaynaa ilaa subaxdii markii laga soo bilaabo waa berigii ilaa gabaldhaco. isku day marka inaad qaybta commentiga kusoo qortid ereyga abstain from adigoo isticmaalayo jumlo dhammaystiran hadduu ilaahay ka raali noqdo. untilna waxa weeyaan waa erey aan baranayno ilaa weeyaan, ilaa laga gaaro. so abstain from maxaan ku sharaxnay? waxaan ku sharaxnay inaad ka fogaatid ama aad ka joogtid ama aad iska daysid weeyaan. to stay away from something, inaad wax iska daysid weeyaan. untilna waxaa dhahnay ilaa weeyaan, ilaa up to a certain time, ilaa waqti laga gaaro. alright, codkan waa dhegaysan doontaa. qaybta labaad ayaan u gudbaynaa. fasting is a way for us to practice patience and feel for the poor. qofki wuxuu ku weydiiyo tusaalahaan oo kale micnaha ama asensiga ama danta laga leeyahay maxay tahay inaad cuntada iyo cabitaanka aa ka joogtay soo mahan. waxa weeyaan ayaa dhahdaysaa marka soonka waa qaab aan annaga u practice garayno patience, waxa la dhaho dulqaad aan nafta u barno. patience, dulqaad iyo samir inaan barno weeyaan. wixii aad jecleed ee cuntadii iyo wixii mamacaanaa ee naftu ay jecleed inaad ka joogtid waxay u baahan tahay dulqaad iyo samir ayay u baahan tahay. marka nafteena ayaa soonka loogu talagalay in dulqaadka lagu baro ama samirka lagu baro. iyo maxaa kale? feel for the poor, in aan dareeno dadka masaakiinta ee dareenkoodao kale aan dareeno. feel for the poor, xaaladda ay ku jiraan oo kale inaan fahanno oo aan dareeno soo mahan. markii oosan soonka jirin qof walba waxaweyaan wuxuu haysto ayuu cunayaa soo mahan. ninkii xoolo haysto xoolihiisa ayaad ku raaxaysanaysaa, waxaad doontid ayaa ka cunaysaa, macaanta ayaad muudsanaysaa. laakiin dadka masaakiinta aan wax badan heli karin, aan waxba haysanin oo kale, gaajo ayay ku joogayaan. marka qofka dharagsan ma dareemi karo qofka baahan sida uu dareemayo. marka soonka waa nidaam uu ilaahay ugu talagalay dadka masaakiinta xaaladoodaoo kale in qof walba uu dareemo, isku stage la wada noqdo, isku marxalad la wada noqdo, si markaasi loogu dhimriyo oo sadaqada loogu siyaadiyo. feel for marka waxa weeyaan inaad dareentid xaaladooda oo aad u dhimriso weeyaan. alright, marka jumladani laba erey ayaan ka baranay. waa patience waa samir weeyaan ama dulqaad weeyaan. patience, be patient, waa maqasha umalaynaa. please be patient, fadlan dulqaad muuji soo mahan. feel for waxa weeyaan inaad dareentid weeyaan, inaad dareento weeyaan oo aad u naxariisto. to have sympathy or understanding of someone's situation, qof xaaladda oo ku jira inaad dareentid oo aad la dhimriso weeyaan. alright, jumlada saddexaad ee aan baranayna waxa weeyaan we break our fast with a meal called iftar.
which often starts with dates. Soonkeena waxaan ku soo afjarnaa ama aan ku afurnaa cunto aan ugu magacdarnay dadka muslimiinta ay ugu magacdareen iftaar afurid weeyaan. Iftaar ayaa la dhahaa. Marka qofkii oo muslimka ahaynin ayaad u sharxaysaa. Iftaar ma garanayo soo maahan. Marka waa cunto la cuno weeyaan ayaan leedahay oo aan ugu magacdarnay iftaar. Cuntadaasi inta badan waxaan ku bilownaa dates, timir ayaan ku bilownaa soo maahan. Timir ayaa lagu afuraa. Often waxa weeyaan marka waa inta badan. Break our fast waxa weeyaan afurid weeyaan, inaad afurtid ama soonkii aad jabiso weeyaan. Alright, waxaan ku afurnaa cunto loo yaqaano afur, taas oo inta badan ku bilaabanaysa timir weeyaan Soomaaliga. Break our fast, soonkeeni markii aan jabinayno weeyaan ama afurid. Hour marka waa soonkeena weeyaan. Haddii aad qof kale ka hadlaysid, break your fast ayaa leedahay, soonkaada jabi ama kaalay afur. Qof baa rabtaa inaad afurkii ku casunto, waxaa leedahay come and break your fast with us, kaalay nala afur. Alright, often maxaan dhahnay inta badan ayaa dhahnay, waa frequency weeyaan, frequently ama inta badan. Ma fahmino? Alright, quizka isku daya inaad ka shaqaysaan applicationka. Haddii uusan ku download garaysnayn falan soo download garay, kadibna quizyadani ka shaqay. Aniga inta kagama shaqayn karo oo muuqaalka inuu ugu dheeraado ma doonayo. Okay, mar kale kusoo dhawaada wax ka baro academy. Waa meel aad luqadda Englishka aad ka baran karayso adigoo ku raaxaysan doono isla xisaabtan iyo kulamo life practice oo speakingka aad xooga lagaaga saarayo. Haddii aad danaynayso faahfaahinteeda waa dhagaysan karaysaa. fadlan haddii aad wax ka faa'iiday ha moogaanin inaad sheer garayso. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.